rabaxana ku dhufanaa kadibna xabadda dhabarka kaga dhufanaa waad aragtaan marxuunka soo taagan ayuu qoortii soo raacsan waa ka marka xabadda ku taala garabkay kaga dhacay xabadka kaga baxay anoo meesha ka shaqeeya wadada baar hay dhaaf meesha qoriga garab kala baxmaayo anoo qofna la murmin qofna la dagaalin meesha goobtii shaqada joog qoriga daal la baxan hal baa lootaa ka dhacay saasay wax u dhaceen ani qofna dil isdheemeyn nin walaalkaana dil isdheemeyn qadar rabiyeyna xabad baxsadaana dish ninkaas walaalkay maxaa dilay xabad iga fakad xabad ka fakatay waxaana goobta kula sugan oo qaybtaas shishe joogo oo marka dambe imaan doono ninka la yiraahdo cali oo marqaatiga hadda aan keenay waa kuwa labada isla saaran mootada hadda yimaadeen mootooyinka saasay u marayaan xaggaas ku soo celinaya markuu dajiyo kadib uu soo celiyo kadib haddana xabad uu ka dabarida uu soo celinaya waa ka marxuunka rabaxana ku dhufanaa kadibna xabadda dhabarka kaga dhufanaa waad aragtaan marxuunka soo taagan ayuu qoortii soo raacsan waa ka marka xabadda ku taala garabkay kaga dhacay xabadka kaga baxay cali waa qofka la hadlaya hadeertaan uu leeyahay waa kaas qofkii la socday hadeertaan ibraahim ayaa banaanka wuxuu ka soo ordayaa gadaal oo la socday cimaamadii u xirneed madaxa oo garabka kaga xiraa sababta waa aragtaan wax gurmad iyo wax oo macnaha uu u fidinayo ma jirto baabuurtaas uu saari kara awood u leeyahay uu gurmadi karaa xataa daqnasho xataa ma laha inuu u yimaado dad kaloo shacab ayaa qaadayo waad aragtaan waa la soo socodsiinayaa qofkay soo dhaxbada ku taalo meeshaas ayuu wuxuu waa ka la wado afgambiyu macnaha awoodii dhiigiya gudaha u shumaa waa ka muraayadii ku dhacayo darbiga waxa ku dhagan oo la socda hadeerta waa qofkii la socday oo ibraahim ah sidaas ayaa lagu qaadaa mootadiisa lagu qaadaa sababta intaas oo baabuur marayso isagana meeshuu iska taagan yahay macnaha wax gurmad iyo wax arxan iyo wax oo danqasho oo dhan uu leeyahay oo u sameynaya ma jirto mootadiisa ayaa lagu qaadaa sababtoo ah qofka xabadda markay ku dhacdo ee ka baxdo dhiigga qaybtan halbowlaha ayaa gudaha ugu shumayo sababtoo ah waa ka uu afgambi u dhacay marka inay maxkamadda si fiican u aragto xabaddan inay ujeeddo ula kac ay tahay